hooyadii waxa weeye way ka qanacday way iska dhigtay ana iska sida anigu saadii ayada hooyahayd baan ahay laakiin anagu dad muslimiin ma nahay waynu samreynaa tuuri mayno qof walba waxaad ka soo qaaday inuu ubadkaaga yahay qof walba waxaad ka soo qaaday inuu walaalka yahay kadib markii maxadka Samagarad ee magaalada Burco oo ka waday barnaamij caafimaad oo fariya kaamka uu shukri ee duleedka magaalada Burco uu ku soo arkay ilmo yar oo markii uu dhashay uu ku dhacay xanuunka faaliga isla markaana istaajiyay xubno kamid ah jirkiisa waxna lagaga qaban kari waayay dalka gudihiisa ayaa waxay keeneen ilmahaasi saaka xarunta caafimaad ee Siraaj ee magaalada Burco oo ay timi dhakhtarad ku takhasustay faaliga suuxdinta gariirka oo ah dhakhtarad ka timid dalka Itoobiya ugu horeynba waxa ka warbixiyay xaaladda ilmahaasi maamulka maxadka Samagarad Mukhtaar Maxamed Jaamac gudoomiyaha kaamka oo shukri iyo sidoo kale waalidiinta dhalay ilmahaasi iyagoona ummadda islaamka ka codsaday in ay soo taraan wixii ay awoodaan ilmahaasi maanta waxaynu joognaa dhakhtarka Siraaj waxaynu keenay ilmaha yar aad nala arkaysaan faaligu hayo runtii aad aragtaan qoortiisu imika xataa hadii aan wax loo dhigin ama aan lahaynin saamotirto ma kici karo ma fadhiisan karo ma dhaqaaqayo waxa laga soo qaaday magaalada kaamka la yiraahdo aw shukri waxaan keenay dhakhtarka Siraaj runtii waxa fadhida oo aan u keenay dhakhtar Mr Fazu oo ka timi Addis Ababa oo markii uu horeysay Soomaaliya timaado oo dhakhtarad ku takhasustay xanuunada faaliga suuxitaanka gariirka iyo xanuunada la halmaala runtii waxaanu soo arkay oo aan tagnay dugsiga Samagarad College sida daradeed markay noqotay anagu ka fikirayna in ilaa Addis Ababa aynu geyno oo qarash badan iyo hawlo badan dheeraad ay naga sii baxaan waxa Ilaahay mahadii dhakhtarada noo keenay dhakhtarka Siraaj oo khabiir ku tahay xanuunada aan hore u soo sheegay ilmihii yaraaba maanta la keenay waxa ka warbixin doonta insha Allah hooyadii waan dadka muxsiniinta runtii ka codsanayna inay soo caawiyaan waxa ay tari karaan wixii ka soo baxay shaybaarkana dib baan walaalaha muxsiniinta ula wadaagi doonaa Samagarad waxay la kaashanaysaa imika inantaa uu magaceeda sheegay ka timi Addis Ababa ee dhakhtarka takhaluska aad ugu ah annaguna waxaan leenahay Ilaahay caafimaad sareecanaha ka siiyo qofka islaamka ah sida gurmadka ay Samagarad ugu taagan tahay in ayagana loola gurmadayno ula kaalmayno oo gurmadku uu iskaashado si Ilaahayna calayska uga dulqaado qofka bini'aadmiga ah ee cadka waagi baryaba waa ugu bariyo qof nool oo nafina ku jirto aan lana tuuri karayn wixii islaam ee ashahaata ee warbaahintaas soo gaadho inuu kala qayb qaato marka ilmahaasi madaxa mooyaan meel dhaqaaqda male madaxaas oo meeydo oo istaagayo kula xaga u dhacayo kula xaga u laabmay ayaa dhaqaaqaya marka ilmaha 8 sano ayaanu haynay 4 sano markuu jiro aabihina dhintay waa agoon aad iyo aad baan soo tacabsanahay waxaan ka codsanayaa ummadda Ilaahay meel ay joogto ee muslimiinta in loo bandhigo muslimiinta loo caawiyo ayaan ka codsanayaa aad iyo aad baan ma qaadi karo uu naga weynaaday intii la qaadayay Cabdiraxmaan Ibrahim Xasan oo ah maamulka xarunta caafimaad ee Siraaj ayaa dhankiisa isna sheegay in ay la tacaali doonaan ilmahaasi inta karaankooda iyagoona sheegay in ay si firiya u daaweyn doonaan ka xarun ahaan ilmahaasi uu haleelay xanuunka faaligu inaanu intii aanu u qaban karnaa u qabanno waxaana eegi doontaa Dr. Fidsam oo ka timi dalka Itoobiya kuna takhasustay xanuunada ku dhaca neerfaha iyo faaliga dhiigkarka iyo paralyska marka insha Allah taala wixii aanu ka qaban karno waanu ka qabanaynaa waanu eegi doonaa maanta waxaan loo keenay ilmahan yar ee paralyska ah insha Allah taala waxaan isku dayaynaa guud ahaan ummadda islaamka meel kasto ay joogaan waxa si naxariis looga codsanayaa in ay wixii ay awoodaan ay soo taraan ilmahaasi yar ee uu haleelay xanuunka faaligu iyadoona loogu soo hagaajin doono lambarada shaashada ku qoran Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi Ariel TV magaalada Burco.